ولذلك أيها الإخوة dadku tan dhow buu ku mashquula wixii ka dambeeyeyna waa arki waayo yani shay yar haddaad isha ku soo dhoweyso wuu qarinaya fartaydan ishaydoo dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhoweynay dabeetana noloshaba wuu inaga qariyey ma arki karaysid ilaa mersediiska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid ولذلك هو تاريخيا في غريغا بلوتارك وحليه قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد in history تاريخ ابن آدم كبوليه وحال هلاي مقالوين قديمة وأنقل عضلهين waxaa la helay buu leeyay magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer waxaa la helay buu leeyay magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu leeyay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn taariikh al-insaaniya waxa archaeology qoday waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihiin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn ولذلك بلوتارك مركز لما وحليه إن مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله مقالين الدستان نلب لهين يعني وحيرة مستحيلة لأن نلبك تشرين نقولها مقالة نسوى مستحيل تاسبا كفضت بولي دولة بلا إله هين تصميسو طبعا وحبر ما السنين يعني إنسان هو بفطرته بو عابدي هي لكن waxay isweydiinta leh yaad caabudaa xoolahaad caabudaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tacisa cabdu dirham wadinaar tacisa cabdu lkhatiifa addoon waxaa hoogay ka dirham iyo diinaar addoon u ah inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadada caabudaysaa cimrigaaga xooggaaga caqligaaga tamartaada waxaagoo dhan waxaad isugu geysay account-kaagu inuu bato account-kan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar laakiin inaad badiso dadka badh baa u addoona guriga asaadka yaallown inuu bedelo maanta oo dhan buu soo shaqaynayaa bilaal la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelayaa waa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya waxaad addoon u tahay alhabtan inaad bedesho modelskeeda That's the purpose of your life. noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay cimrigaagii waxaan baad ku bixisay sheekh Zandani baa wuxuu isugu yeedhay niman khubaro dhakhaatiira markaasuu cilmi tashriix uu ka waraystay bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa muxuu taraa muxuu jirka ugu jiraa waa la sharxay beerku muxuu taraa kaliyu muxuu taraa kani muxuu taraa waa la sharxay kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay marka la isku wada daray uu qof noqdo ka warrama maxaa loogu talagalay isaga and that's philosophy يعني maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa weli haddii acdaada qofka bini aadamka mid walba waxa loogu talagalay la gartay waxay marka la isku daro haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa steerinku waxan buu sameeyaa daaqaddu waxan bay samaysaa marka la isku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano baartiskiisa may ahayn insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay waayo hadafkii baa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya ka kubadda ciyaaraya labada birood ee meesha laga taagay markay caagga yari uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya ayuu u guulaystay hadafkii buu gaadhay wixii bahashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyahay
waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa sokoo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya ee hadafkaaga weyni goolkaaga weyni yoolkaaga weyni wuu kuu cad yahay aad ku socoto waxaanoo dhammina ay u adeegayaan yoolka weyn falaasafada iyo dunida ugu waaweyneyd nin ka mid ah falsafo faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la ydhaha falsafadan la ydhaha qolada rumaysanayd ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay boolisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinii wixii u baahnayd in boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa boliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah kan iminka hogaaminaya dastoorka yurub ay qoranayso madaxda waa giscard baa waxaa la yidhi akbar filosofi cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransiis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahy noloshan aan joogo hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahy wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahy natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeeduba waa cabaf buu leeyahy waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilay kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama gala bay leeyihiin aada og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la ydhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqata in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo therefore wuxuun baan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo that's why maanta yurub qaamiyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha waa maxay macnuhu waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmay waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay markaa noloshan adduunyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala